sida sharafta leh ee qiimaha leh aad ii soo dhaweyseenayaan halkan ka mahad celinayaa. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Nuur Macalimo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dhowr toddobaad ee la soo dhaafay oo xaalada caafimaad ugu maqnaa wadanka Turkiga. Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa ku dhaawacmay qarax lagu weeraray gaarigiisa oo marayay bartamaha magaalada Muqdisho. afhayeenka ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, saxaafadda iyo asxaab kale oo kala gedisan. waxa uu u mahad celiyay xukuumadda federaalka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gargaarkii uu u fidiyay xilligii uu dhaawacmay. haatanna xaaladiisu aad ayay u soo wanaagsanaatay. soo laabashada afhayeenka xukuumadda ayaa ku soo beegantay xilli lagu wado in dhowaan lagu qabto doorasho kursi uu horey u sheegay Macalimo inuu isu soo sharixi doono uuna ka mid noqon doono golaha shacabka. kursigaasi uu rajayn doono inuu ku guuleysan doono Macalimo isagoona ku matali doona qabiilka beelahaan uu ka dhashay. waana kana Maxamed Ibraahim Macalimo oo warbaahinta la hadlay kadib imaanshihiisa magaalada Muqdisho. marka hore sida sharafta leh ee qiimaha leh aad ii soo dhaweyseenayaan halkan ka mahad celinayaa. waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa odayaasha qiimaha leh Ambassador Yuusuf Garaad iyo tiimka xafiiska ee Faadumo ay hogaaminayso iyo dhammaan saaxiibada warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhaweynteeda maanta halkan u joogay waqtigooda qaaliga u lumiyay. runtii aad iyo aad aan u mahad celinayaa. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo markii dhibkan uu soo gaaray dadkii faraha badnaa ee Soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyay inay maaragtay ii soo duceeyaan. ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba laga soo duceeyay. marka dadkaasna waxaan leeyahay Ilaahay ajir idinka siiyo. waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda oo runtii garab istaag ii muujiyay runtii xilligii dhibkan ugu dhacay oo isla markaasna si degdeg ah u amray in duulimaad qaas ah lagu qaado. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii dawladda ka tirsanaa maaragtay ila xanuunsaday. runtii waxay dhacay 16 January maalin axad waxay ahayd wax maaragtay masiibo ah. ilaaha naga badbaadiyay laakiin qulan yusiibana ilaa ma kataballahu lana waxaan maaragtay xagga eebba kaaga qorneen kuma dhici karaan. marka qadarta alle ahayd waana ku qanacsanahay. waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu iga dhigo maaragtay dambi dhaaf qof kastoo Soomaaliyeed oo maaragtay ii damqadayna waa u mahad celinayaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo dhaqaatiirta isbitaalka Erdogan oo Digfer oo ah isbitaal runtii niman dhalinyaro ahaa oo hawshii ay qabteen horseed ay u ahayd hawsha dhan wal ay qabtay markii halkaa la geeyay. warbixinta ay qoreen iyo sida ay u shaqeeyeen ayaa waxay muujinaysaa in dalkan uu weli adkaysi leeyahay oo ay joogaan dad rajo leh oo mustaqbalka ka shaqeynaya. marka aad ugu mahad celinaya maamulka iyo shaqaalahaas isbitaalkaba. sidaa ogtihiin waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee musharaxiinta ahaa ee rabay inay sanadkan xildhibaan noqdaan. marka hawshaasna maaragtay insha Allah waa sii wadi doonaa. waxaan ahaa qof Soomaaliyeed oo dalka ka soo shaqeeyay muddo dheer. waxaan ka soo shaqeeyay dhalinyarada iyo isboortiga. waxaan ka shaqeeyay caafimaadka. waxaan ka soo shaqeeyay muddo dheer saxaafadda. marka maadaama aan waqti dheer Soomaaliya xogaal u ahay waxaan rajaynayaa beesha aan maaragtay kursigeeda rabo inaan ku matalo iyo sidoo kale maamulka Hirshabeellaba inay fursad ii sii doonaan inaan dalka u adeego. insha Allah tacaala waxaan Ilaahay ka baryayaa in dalkeena uu nabad ka dhigo Soomaaliyana ay maaragtay nabad noqoto. qof kasta oo maaragtay maanta soo dhaweeyay iyo kii qalbigayga soo dhaweeyay dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ugu dambeyntii Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa u muuqday inuu ka soo kabanayo dhaawicii adkaa ee ka soo gaaray qaraxii loogu xiray gaarigiisa oo marayay bartamaha magaalada Muqdisho. haatanna waxa uu yahay musharax u taagan matalaadda kursiga beeshiisa. Abdiraxmaan Atore, Nairobi.